السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام أصحابتك سو دوادا مقال عصب فيديو عصب أيا إذين ودا سو دوادا فيديو ونوشر قرأي سيدو كلا مقال كانولا قرأي ومهدسنتين سيدا أقو حرنتين مقالدين وإذن كيغا مهد علينايا وحانا رجينا إنا في عنتهين ومقال كانوا إذن سو قاري أنكو عافماد قبطان marka u guda galna qisadeena qisadan oo ka dhacday wadanka Sacuudiga kadibna wadanka Urdun ayay markaasi qisada u gudbi doontaa bal horta marka hore aan qisada idiin bilaawo markaas ayaad fahmi doontaan qisada dhamaadkeeda iyo bilowgeeda isma laha runtii bal aynoo bilaawo wiilka lagu magacaabay qisadani ku dhacday Xaawa oo aheeda gabadha ayada qisada lafteeda dhinac ayay uga dhici doontaayo labadoodaba way wada saameyn doontaa marka qisada aynoo bilaawo wiil markaas la nool hooyadiis iyo aabihiis kaligiis ayuu ahaa wuxuuna aad u jeclaa yaraantiisii laga soo bilaabo gabar adeerkiisa uu dhalay oo la dhihi jiray Xaawa waxay ahaayeen ilmo adeero sidoo kale isku xaafad ayay deganayeen xataa Xaawa aabaheed waa uu ogaa Xaawa jecel yahay marka ilaa yaraanteedii ilaa ay kasoo weynaatay ilaa ay kasoo qaan gaartay ayuu wiilkaasi gabadha Xaawa aad u jeclaa kor ayuu ka eegan jiray Xaawa marka ayadu jacaylka aadam iyo rabitaanka aadam oo dhan ma uusan u muuqan waxa jacayla oo aadan dhankiisa maysan u qabin laakiin way ogeed in aadam uu jecel yahay wixii arrinkaba sidaas uu ahaado aadam ayaa go'aansaday inuu Xaawa guursado Xaawa in markaasi ay jeceshahay iyo in jacayl kale ay leedahay xitaa ma uusan weydiin aabaheed ayuu u tagay oo ahaa adeerkiis isku xaafadna way ahaayeen adeerka markuu u soo bandhigay in gabadhiisa Xaawa uu rabo horay ayuu aabaha ka aqbalay waayo wiilkiisii labaad oo walaalkiisii dhalay iyo gabadhiisii ayaa isguursanaya marka wuxuu ka dhihi kara ma jirtay horay ayuu ka aqbalay guurka Idris iyo sidoo kale gabadhiisa Xaawa markii loo sheegay in Idris uu soo doontay ma aysan ku farxin waayo waxay u heysatay wiil walaalkeeda ah in adeerkeeda ah marka ma aysan ka filanaynin in guur ka imaaday ama doonis ka imaaday dhinaca Idris loo soo bandhigi doono saasta ay tahay way iska aamustay aabaheedu aad ugu faraxsanaa gabadhiisa la soo doontay ayadana iska aqbashay in markaas Idris ay isguursadaan guurkoodii ayaa dhacay Idris sidii uu rab ayay u noqotay waayo gabadhii uu jeclaa ilaa yaraantiisii ayuu guursaday marka wax markaasi ka maqan ma jirto alla yaa u sheegay oo guurkan gajoog ku dhaho laakiin qiso kasta oo dhacda ama wax walba oo qofka ku dhaca ma ogaan karo waxa markaasi ku dhici doona ee gadaal dambe ka imaanaya waqtigaas uu taagan yahay qofka waxa uu rabo ayuu iska samaystaa marka Idris siduu rabo ayay u noqotay waa uu guursaday gabadhii uu jeclaa ee Xaawo aheeday Xaawo sidoo kale way ogolaatay in markaasi Idris loo guuriyo oo guurkoodii ayaa dhacweyna aqal galeen halkaas ayada oo sheekada marayso ayaa waxaa dhacday ninka lagu magacaabo Idris in uu raadiyo shaqo hooyadiis iyo aabihiis ayuu la noolaa oo dulsaar ku ahaa xaasna waa uu keensaday waxa uu go'aan ku gaaray in uu noloshiisa maareeyo maadaama uu gabar guursaday waxa uu raadiyay shaqo kasta waa loo soo diidi jiray oo waxaa markaasi dhacday in nasiib uu u yeeshtay in markaasi asgarinimo uu qorto si markaasi uu qaranka ugu shaqeeyo halkaasna uu isdhahayo waxaa ka heli doontaa xoogoo lacag ah markaasi noloshiina waa nolosha gabadha aad guursatay iyo hooyadaadii aabahaagii noloshiina dhan aa ugu maareyso marka Idris wuxuu qortay in uu markaasi asgari noqdo muddo ayuu hooshaasi ama shaqadaasi uu ku jiray waa ay soo dhamaatay asgarinimadii oo wuxuu noqday asgarin marka shaqadii ayuu bilaaway wuxuu aaminsanaa in arrintiisa ama howshiisa ama noloshiisa oo dhan ay maalinta ka dambeyso ay isku toosayso maadaama uu guursado gabar uu jeclaa haddana uu bilaabo shaqo marka wuxuu islahaa markaan waa markaagii oo wax kaa haleysan ma jirto kadib maxaa dhacay Idris waxaa jira nin asgari kale ahaa oo ay isla shaqeyn jireen oo ay isku dhawaayeen marmarka qaar gobolada ay isla aadi jireen halka marmarka qaarna magaalada ay ku soo noqon jireen marka waxaa dhacday maalmaha kamid inay iskhilaafeen nin asgari ahaa oo midkaas ay isku dhawaayeen ahaa ee ay isla shaqeyn jireen kadibna khilaafkoodu waa uu bata gacanka hadalna waa uu gaaray marka kadib waxaa dhacday Idris oo maalin carooday
in markaasi gacanka hadal sheekadoodu ay dhaaftay isla markaasna ninkii asgariga kale ahaa ay xabad uga fakatay. Xabadii marka ay ku fakatay kadibna ninkii waa uu dhinto oo tiisii ama waqtigiisii ayaa dhammaaday. Asgarigii kale ayaa markaasi geeriyooday halkii Idrisna la xiray oo xabsiga loo taxaabay. Markaa ninkii Idris ahaa waxaa dhacday in ay ku caddaatay in nin kale oo asgariya asagana in uu dilay isla markaasna dembi aad u weyn loo haysto. Ninkii markii dembigaasi ku caddaatay oo asgar kale oo goobta ka dhawaayeenna ay caddeeyeen in ninkan falkaasi uu ka dambeeyay ayaa waxaa dhacday ninkii Idris ahaa in lagu xukumay 20 sano oo xarig ah. Hooyadiisii aabihiisii Idris iyo sidoo kale xaaskiisii Xaawo aheeday aad bay uga xumaadeen in wiilkeedii hooyada lagu xukumo 20 sano oo xarig ah ayada oo aad uga xun ilmeynaysa. Idris laftirkiisa aad uga xun maadaama halka wiil hooyadiisa uu ku ahaa ayaa xabsiga la dhigay. noloshu sida uu maleynayay Idris ma aysan u noqonin. Nolol kale oo runtii mugdi ah ayuu galay. Xaaskiisii uu jeclaa ilaa yaraantiisii ayuu ka soo fogaaday. Sidoo kale hooyadiisii aabihiis uu halka wiil ku ahaana waa uu ka soo dhaqaaqay. Xaawo waqtigaas waxay laheeda uur. Markaa Idris waxaa dhacday in la xiray. Xaaskiisa iyo hooyadiis waxaa loo ogolaa kaliya isbuucii hal mar inay soo booqdaan. Booqashadaas oo aheeda wax aan saas u sii buurnayn kaliya 20 daqiiqo 25 daqiiqo in Xaawo ay aragta ninkeeda halka hooyadana loo ogolaa in 25 daqiiqo ay aragta wiilkeeda. Markaa isbuucii hal mar ayay soo booqan jireen Xaawo iyo sidoo kaleeto hooyada dhashay Idris. Muddo ayuu noloshaas Idris ku jiro aad buuna uga xumaa in xaaskiisii asiga la kala qariyay. Nolol mugdi ahna uu galay waxaanoo dhanna ay yihiin wax markaasi gacantiisa ku imaaday. Intaas kadib Xaawo canug ayay dhashay oo wiil ayay dhashay. Sidaas si lamid ah wiilkii yaraa ayaa xabsiga loogu keeni jiray Idris oo xaaskiisa ay u dhashay gabar xitaa looma ogolaan in markaasi banaanka uu u baxo. Kaliya xabsiga ayaa wiilkiisa yaraa loogu keeni jiray. Halkaas ayuu nolol mugdi ah ku qaatay Idris oo xaaskiisii ayaa ugu imaan jirtay. Kadib xaaskii waxay joojisay gebi ahaanba inay soo booqato Idris. Canugiisiina in loo keeno oo dhan ayaa laga joojiyay. Xaawo iyo markaa Idris wax markaasi xiriir ah ma aysan lahayn oo yacni telefoon in la iska soo waco. Qofka markii la xiro oo xabsiga la geeyo oo la xukmiyo ma jirto wax telefoon la dhahayo. Markaa kaliya aragti ayaa loo ogolaa. Xaawo waxay joojisay in markaasi Idris ay u tagto. Dhibsatay noloshan kaligeed iyo canugeedii ku kooban. Markaa kaligeed ayay noqoto oo ninkii waxaa lagu xukumay 20 sano oo xariga. 20 sano ayay tirinaysaa aad ayayna 20 sano markaasi u dheereeday. Waxay Xaawo go'aansatay inay baxdo isla markaasna aado wadanka Urdun ayadoo cidna maysan ka aqoonin laakiin ayada ayaa jeclaatay inay halkaas aado halkii ay ku dhalatay ehelkeedii qaraabadeedii oo dhammaan Sacuudi Carabiya deganaana ay ka tagto. Sidoo kale inaysan dib dambe u arkin ayay go'aansatay ninkii canuga ka dhalay ama ninkii markaasi ay isguursadeen ee Idris ahaa. Gabadhii waa ay baxday waxa ayna aaday wadanka Urdun. Hal qof ay ka taqaana ma jirinin. Nolosha runtii waxay ku ahayd ciriiri. Inta ay sii socotay waxa ay isbarteen oo markaasi ay baska sii saarneed waxay isbarteen nin markaasi wadanka Urdun u dhashtay. Xaawo iyo ninkii waa ay sheekaysteen. Halkaas ayay ka bilaabatay sheekada oo waxay Xaawo u sheegtay in aysan haysan meel ay jiifato. Hooy ama cid ay u socoto iyo halka ay ka timid toona aysan ka seenin. Ninkii ayaa Xaawo u sheegay in markaas uu caawiyo isla markaasna u geeyo hooyadiisa oo wadanka Urdun dhinac ka degan. Markaa wuxuu dhahay hooyadeeda la joog muddo markaa reerkaagii ama markii aad heshid meel aad ku noolaatidna waad naga tagi doontaaye soo dhawow walaashay. Markaa Xaawo iyo canugeedii ninkii ay wadada isku barteen ayaa kaxeeyay una geeyo hooyadiis. Halkaas ayay hooyadiisa kula nooleeday. Markay muddo la nooleeday waxa ay Xaawo markaasi isfahmeen ninkii hooyadiis u keenay oo ay wadadii isku soo barteen. Waa la heshiiyey wayna isguursadeen. Ogow Xaawo weli ninkeedii wuxuu ku jiraa markaa xabsigii. Sidoo kale Xaawo way ka qarisay ninkan Urdun u dhashtay oo ay guursatay in markaasi ninka canugan dhalay uu weli qabo ma aysan u sheegin. Hawsheedii ayaa iska wadatay. Xaawo waa la guursaday. Guri bay yeelatay. Halkaas ayay Xaawo waxayba iska dhigtay gabar aanba
horey loo guursan ama aan marwo ahaynin. Ninkii guursaday xaawo ee waddanka Urdun u dhashtay 2 ciyaala ayay xaawo u dhashay. Jawi kale ayay bagashay qoftaan oo ninkeedii la xiray iyo sidoo kaleeto reerkeedii iyo waxaasoo dhan qoftaan way ilowday. Mana rabinba inay markaasi soo xasuusato. Dhanka kale Idris hooyadiis oo kaliya ayaa u imaan jirtay halka aabihiina uu noqdo qof da' oo markaasi aanan awoodin inuu markasta xabsiga wiilkiisa ku soo booqdo. Hooyadu waxay uga warantay Idris in xaaskiisii ay u guurtay waddanka Urdun oo gabi ahaanba Sacuudiga ay ka tagtay canugiisii yaraana ay wadatay. Idris oo aad uga xun wixii ku dhacay jacaylkii uu xaawo u qaaday ilaa yaraantiisiina weli uusan ka bixinin aadna wuu u jeclaa. Markaa xaawo waa ay guurtay ayay ku tiri hooyadiisa. Waxaa dhacday muddo kadib 20 sano ayaa dhamaatay ee xabsiga lagu xukumay Idris kadibna wuxuu ka soo baxay xabsigii. Hooyadiis oo kaliya ayaa taaganida xabsiga banaanka halka dad badan oo markaasi xabsiga laga soo daayayna ay sugayeen banaanka ay ku sugayeen caruurtooda iyo xaasaskooda. Laakiin Idris maysan dhicin in xaawo iyo ciyaalkii cunugii ay u dhashay ay kasoo muuqdaan halkaasi. Kaliya hooyadiisa ayaa banaanka taagneeday. Wuu maleysan waayay dhinacyada ayuu fiiriyay laakiin ma taagnin xaawo. Aad ayuu u naxay hooyadiisna waa uu weydiiyay. Markaa wuxuu dhahay hooyo meeda xaawo. Xaawo waxay tiri waataan kuu sheegay waa ay guurtay. Markaa dib dambe Sacuudiga uguma soo noqonin. Aad baan uga xumahay ayay tiri hooyo ina keen. Aad ayadoo hooyada uga xun laftirkeeda ogeydna wiilkeed inuu si xad dhaaf u jecel yahay xaawo ayaa hooyadii guriga ayay keentay. Markii uu guriga imaaday Idris waxa uu ku cararay qolkii ay xaawo deganeeday. Saa wax jooga ma lahanin. Ficlaan laheeda inuu markaasi xaawo arko iyo canugiisii laakiin ma aysan dhicinin. Aad buu uga xumaaday. Hooyadiis ayuu weydiiyay hooyo Urdun dhinacee ayay aaday ayuu yiri xaawo. Ma garanayo ayay tiri. Markaa aad buu u naxay wuuna maleysan waayay in xaaskiisii ay ka tagtay. Markaa waa xaawo oo baxday waddan kale aaday 2 canug nin u dhashay isla markaasna nin guursatay. Wiilkii markaas Idris dhalayna haysato oo 3 canug ayay sidaasi ku haysataa. Idris waa uu fadhiisan waayay cuntadiina waa ay ka digi weysay sida uu maleynayana waxba maysan noqonin. Markaa wuxuu go'aan ku gaaray in markaasi uu raadiyo xaawo. Xaawo dhankii uu ka raadi karaa waa uu baxay waxa uuna u tagay adeerkiisa oo asna da' noqday waayeelna noqday. Markaa wuxuu weydiiyay halka xaawo ay aaday. Adeerkii ayaa wuxuu u sheegay Idris in xaawo la guursaday nin uu guursaday 2 cunug ay u dhashay. Markaa hadda 3 ciyaal ay haysato waddanka Urdunna ay degan tahay. Idris wuu maleysan waayay wuxuu dhahay adeer sidee loo guursan karaa xaaskeyga ma fahmin ayuu dhahay ifahansii. Markaa adeerku waxa uu yiri xaawo waxay ii sheegtay inta aad xabsiga ku jirtin inaad kala tagteen sidaas darteed waxa iga soo doontay nin kale oo waddanka Urdun u dhashtay ka bacdiina waan siiyay ee adeer sidee wax u jiraan. Kadib Idris ayaa ilmada cishan waayay qayliye dhulka isku garaaca adeerkiisna u sheegay in xaawo uusan marnaba furin xitaa uusan furi doonin. Adeer maxaa kugu dhacay ayuu yiri haddii aan xaawo kala tagna xitaa waad maqli laheedaye sidee macquul ku tahay in xaaskeyga nin kale uu guursado isla markaasna 2 ciyaal ay u dhasho. Markaa way baxeen wuxuu go'aansaday maalintaas kadib inuu Urdun aado asaga oo markaasi loo sheegay halka xaawo ay ku nooleeday. Waa uu baxay asaga oo aad u xanaaqsan ma garanayna safarkiisa inta maalmood uu qaadanayo. Wuu cararay wuxuuna tagay halkii loogu sheegay in xaawo ay ku nooshahay. Albaabka markuu garaacay waxaa ka furay ninkii Urdun u dhashay ee xaawo qabay. Waa uu weydiiyay waana la isa salaamay. Ninkii waxa uu u sheegay in Xuseen lagu magacaabo isla markaasna xaaskiisa xaawo la dhaho ay maqan tahay. Adigu yaad ahayd ayuu ku yiri. Waxa uuna Idris u sheegay in uu yahay saygii markaasi qabay xaawo ee canuga weyn dhalay. Ninkii labadii nin ayaa halkaasi labadoodii dhinacba midba dhinaciisa ka yaabay oo qaracmay. Markaa Xuseen waa uu maleysan waayay in xaawo ay hor u aheyd marwo halka sidoo kale uu markaasi aad uga naxay aragtida ninka markaasi xaawo qaba waa ninka Idris. Halkaas ayaa buuq fara badan ka dhashtay. Dad badan oo deriska ayaa isku imaaday waxaana halkii markaasi goobtii timiday xaawo oo suuqa ku maqneeday. Xaawo markii ay Idris aragtay waa ay qaracantay waa ayna maleysan weysay. Markaa wax ay salaanti iska daayay waa inkirtay waxa ayna ku tiri ninkan waxa uu iga dhalay canugeyga weyn laakiin aniga iyo asaga isma garanayno oo marwadiisa ma ahay ayay tiri. Markaas kadibna halkaas ayaa waxaa dhacday
in ninkii xaawo qabay ee Xuseen ahaa uu ka carooday ama uu aad uga xumaaday inuu guursado gabar Marwa ee nin qabo. Ninkeedii oo xabsiga ku jirana ay been u sheegtay. Kadibna waxa uu ku yiri xaawo albaabka ka bax ayuu dhahay, labadeedii cunugna aniga ayaa heesan doono, dib dambana ma rab inaan kuu arko iyo wejigaaga iga qare ayuu yiri. Markaa xaawo ayaa banaanka ninkii usoo bixiyay oo boorsadeedii usoo tuuray, halka labadeedii cunugna markaasi uu ka reebtay. Waa labadii cunug ay xaawo u dhashay. Idris ayaa asigoo aad ugu xumaa maalintaasi halkaasi ka tegay, aadna wuxuu uga xumaa waxa halkaasi ka dhacay. Idris dhowr maalmood kadib wuxuu ku soo noqday wadanka Sacuudiga. Hooyadiis ayuu u sheegay qaracankii iyo markaas dhibkii ay u geysatay xaawo iyo wixii ku dhacay. Xaawo iyo canugeeda ayaa isku soo hareen, maysan garanaynin meel markaas ay nolol ka bilowdo iyo halka ay degi doonto. Nolosha dhan aad bay xaawo ugu adkeeday. Markaa xaawo waxay isbarteen gabadhaas oo ay u maleynaysay inay gabar wanaagsan tahay. Fiicnaan laheedee xaawo inay gabadhaas baran, laakiin maxaa ku dhacay? Gabadhii waxa ay xaawo u sheegtay in markaasi ay la joogto maalmaha ay safarkeeda diyaarinayso oo ay aadayso Sacuudiga. Markaa halkaas ayay ka bilaabanaysaayoo xaawo waxay gabadhii u sheegtay in ay jirto shaqo markasta la heli karo. Shaqadaas inay ka shaqaysato ayay u sheegtay, canugana ay u sii hayn doonto. Markaa shaqadii marka ay xaawo weydiisay waxay moodo shaqo qadaamo laga shaqaynayo oo dhulka la tirtirayo ama cunto la karinayo. Laakiin xaawo waxay gabadhii u sheegtay inay tahay shaqo ah in markaas ay ka shaqaynayso goobaha markaasi kalaabiyada ah. Shaqadaas markasta ayaa la helaa ayay tiri. Haddana adiga aad baa ugu baahan tahay. Canuga intaan kuu haynayo orodo xaawo ay halkaas ka soo shaqayso. Haddii kale adiga ayaa wixii ti noloshaada ay kuu koobnaa doontaa. Aniga waxaan ku hayn doonaa muddo kooban. Markaa ma awood inaan ku hayo muddo fara badan. Shaqayso oo guri kireysa ayay tiri. Canugaagana iyo adigana halkaas ku noolaada. Wiilkeedii oo markaasi wiil weyn ah, isla markaasna wax kasta u baahan xaawo. Xaawo wax ay samaysay ayay garaweysay. Waxa ayna go'aan ku gaartay in markaasi ay ka shaqayso goobihii loo sheegay, meel kalaab ah oo dadka iskugu imaadaan oo qamriga lagu cabo, isla markaasna dadka ay jirkooda markaasi ka ganacsadaan. Ayay xaawo ka bilowday in ay ka shaqayso. Gabar qurux badan oo asturan oo dhowrsan ayay ahayd, laakiin danta ayaa ku qasabtay in halkaas ay ka shaqayso si wiilkeeda iyo ayadaba ay nolol qurux badan ugu noolaadaan. Micnihii waxay u fahantay in halkaasi nolol qurux badan ay ka heli doonto. Laakiin maxaa dhacay? Xaawo waxay dhacday maalinba maalinta ka dambe sidii kalaabkii u imaanaysa uga shaqaynaysa una maleynaysa meel fiican. Waqtiga ayaa la tegay. Gabadhii waa ay isbedeshay. Waxayba noqotay dadka halkaasi ka shaqeeya iyo dadka halkaasi imaada ayadiina u ekaatay. Oo waxaa la yiri deriskaaga siduu ka yahay ayuu ka dhigaaye. Ayadana waxay noqotay qof markaasi aan qiimo lahaynin, qof markaasi qamriga cabo, qof markaasi balwad bartay, qof jirkeedii oo dhan maxal dhow isbedelay, way qayirmatay. Markaas sidee u maleynaysa si ka duwan ayay nolosheedii oo dhan iskugu markaasi bedeshay. Markaa ma aysan filaynin in arrinkan uu la fogaan doono. Waxay isla heeday meeshan ka shaqeey inta shaqo kale ka helaysid ama canugaagii adiga aan nolol fiican ka gelaysaan. Markaas sidee moodaysa ma aysan dhicine. Xaawo gabi ahaanteedba way isbedeshay. Waxayna noqotay dadkii meeshii imaanaya oo kaleeto, oo jirkeedii ayaa iska noqday wax iska caadi ah. Sidoo kale waxay noqotay qof qamriga iska caba. Aad iyo aad bay isku bedeshay xaawo. Markaa wiilkeedii yaraana oo weynaada laakiin waa ay haysatay. Inkasta oo guri kireysatay, nolosheedana ay sidaas ku maareyn jirtay, laakiin qaabka ama nolosha ay u nooleed nolol fiican ma ahayn oo nolol Ilaahay raali ka yahay ma aysan ahaynin. Markaa Idris marka uu ku noqday wadanka Sacuudiga aad buu u qaraxsanaa. Runtii aad buu uga naxay wixii gabadhan xaawo la dhaho ay ku dhigtay. Wiilkii waxaa dhacday ninkan oo nin weyn ahaa waa uu waashtay oo maryaha ayuu tuurtay. Hooyadiis ayaa aad uga xumaatay wiilkeeda waxa ku dhacay oo halka wiil ay ka haysatay. Markaa gurigii waa uu ka tagay oo darbiyada ayuu iska jiifan jiray oo qof markaas maskaxdiisa joogta ma aysan ahaynin. Hooyada dhashay Idris waxay go'aan ku gaartay in ay raadiso wiilkii xaawo dhashay si markaasi ay u haysato maadaama wiilkeedii waashtay si wiilkaas uu uga dayacmin.
hooyadii waxay imaaday waddanka Urdun ayada oo da' ah oo weyn, waxa ayna go'aan ku gaartay inay Xaawo ka soo kaxaysato wiilka. Markii wiilkii ay u timid iyo Xaawo, waxay u timid Xaawo oo kalaabyada ku jirta, ka shaqaynaysa, isla markaasna dhinaceeda qamriga ka cabayso. Aad bay u naxday, wayna aamini weysay, ayada oo quus taagan ayaa wiilkeedii ka soo kaxaysata Xaawo, isla markaasna ku soo celisay waddankii ay iskula noolaayeen ayada iyo markaas wiilkeedii waashtay iyo wiilkii uu sii dhalay. Markaa noloshaas oo aadka u xun ayay Xaawo kaligeeda ku hartay. Sidoo kale ninkeedii Idris ahaana waa uu waashtay. Canugoodii oo dhexdoodii ka baxayna hooyadiis ama hooyada dhashay Idris ayaa haysatay. Markaa nolosha waxay ku dambeysay Xaawo markii ay Xaawo markaasi ay qayaantay ninkeedii Idris ahaa, waxaa ku dhacay nolosheedii oo dhan ayaa waxaa dhacday in isbedeshay, isla markaasna si aysan moodeynin si ka duwan ay noqoto. Ma wanaagsana qayaanada, weliba ayadoo marwaa inay mid kaleeto guursato aad bay ugu qaldaneed. Halkii Idris naxtin uu ka naxay xaaskiisii oo ninka kor guursatayna uu waashtay, isla markaasna maryaha tuurtay. Markaa labadii qofood ee noloshoodu quruxda ku bilaabatay, labada dhinac ayay qisada uga kala dhacday. Markaa wax sahlan ma aha. Mararka qaar guurka waxaa la moodaa in uu yahay wax qofka markuu guursado wuxuu ku fikirayaa in uu ku jiro noloshii ugu fiicneed adduunka, laakiin waa uu isbedeli karaa oo gadaal dambe ayuu ka xumaan karaa. Markaa qisada oo ku bilaabato jacayl iyo sidoo kale guur, gabar reerkeedii laga doontay, wiil gabar jeclaaday, waxay gadaal dambe ku dhamaatay labadii qofood ee isguursaday ee nolosha quruxda badan bilaabay oo gebi ahaanba mid kasta si gooni ah mucjiso ay ugu dhacday. Markaa Xaawo isbedel ku dhacay iyo sidoo kale Aadam oo waashtay oo noloshiisii oo dhan ay isbedeshay. Markaa qisada bilowgeeda waxaa la moodaa inay tahay qiso macaan badan, qiso jacayl ku bilaabanaysa isla markaasna jacayl ku dhamaanayso, laakiin kuma dhamaanin jacayl kaliya. Jacayl hal qof uunbaa gabar jeclaa, laakiin waxay ku dhamaatay jacayl ma jirine nooc kale oo markaasi murugada ka mid ayay ku dhamaatay. Aad baa idinku mahadcelinaya muuqaalka xig intaan ku kulmayno. Nabadgelyo. Fiidiyowga noo share garee, sidoo kale laag noo saara. Waa mahadsantihiin.